bana aad ugu amaanaya mid waa taas Soomaalinimada oo sidii la sheegay haatan inkastoo aan ka mid ahay oo meel deeg joogo meelaha yaryar la kala odootay oo runtii maamul goboleedyada lagu sheegayo oo ah qaan anu qabo madaxweyne ku xigeenka qabyaalad siloon waa reer siloon inay maxay tahay meeshii la tago waa meel badan baan maray reer Puntland baa laga yaabaa inay soo dhaweyn jireen tan ka duwan ee Soomaalinimada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in laga bartona aad gaarsiisaan meel kalena waa codsanaya waxaan kale oo iyana ku faraxsan oo ku arkay dumarkii Aasha iyo maxay tahay iyo dumarkii aad inala sintaan soo barbar fadhiisteen oo qaybtoodii siiseen oo 30% maxaa la oran jiray 30% kale aad ka sareyseen taana aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa uguna faraxsanahay waayo waxaan isleeyahay dawladda ka sameysteenoo guriga iyo abaabulka iyo intaas haddaan ka gudbo waxa wixii halkaa laga sheegay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u qaadanaa hadday canaan tahay iyo hadday tilmaan tahayba mid constructive ah mid xumaan oo arki mayno mid wanaaga oo toosina oo haddii aad ku runayay wanaagna la jecel yahay oo Soomaalina la jecel yahay baan u qaadanaa marka hore taa qabsada suldaan ما socdaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kelmadiisii Puntland baan ku casuumayna Puntland way jeceshahay Puntlandna way jeclaan doontaa cidda runta u sheegta way jeceshahay oo nasteexa laakiin Salaad Cali Jeelay ugu jeceshahay barka Salaad Cali Jeelay labaad baad u noqon doontaa Puntland haddii alla iyo taana waxaan u arkaynaa inay nasteex ahayd Soomaalinimo iyo halkii aad ka filaysay Puntland oo aad maxay tahay aad u tilmaamaysay Puntland runtii way tahay hooyada Soomaaliyeed waana ku doodaa waana isu dhigtay waana ku shaqaysaa dhowr qodob baan idin sheegaya wax horta goboladu ayaan dhaweydna waa ka hadlo Puntland iyo federaalku isma hayaan ismana qaban doonaan way idinku bushaareynaya isma hayaan haddaad maqasheen qanjarafooyin baa waxaa jira waa waxaan ku mahmahay laba dhaxal isku haysta maxay isu yihiin lama yiraaho la dhaxal bay isku haystaan waxay wada leeyihiin haddii aad waxyaabo maqashaan waa dhaxalka la isku haysto wax ka weyn ma jiraan runtii mana jiri doonaan waayo Puntland ilaa taariikh hore oo la sheegayay oo tii gobonimada ahayd ilaa kuwan dambe aad bay diyaar ugu tahay in maxay tahay ay Soomaalinimo ka shaqeyso taa iyada waxaana sidii uu sheegay hadda jananku Khalifa iga horeeyay madaxweynaha Puntland hadda markuu Kismaayo ka soo noqday wuxuu ay isla soo qaadeen madaxdii halka ku arkeen inuu xil qaado isagoo Puntland xil qaado oo uu hawsha iyada dhex galo oo Puntland ay qaato runtii ololaheedana waanu ku jiray oo ku tashoonay in Puntland ay gogol dhigto Soomaali isu keento maxay ahayd wixii jira halka lagu dhameeyo oo gudaheeda ay ku dhamayso taana intaas baan maxay ahayd aanu idinka sheegaynaa aad iyo aad baad ugu mahadsantiin haddaa ka damqateen waxyaabo kala jeejeeda iyo isaysan midna waa ku sheegayaa federaalku
ninbaa ina weydiinayay cabdinuur baan umay federaalku waxbuu ina taray waxbayna ma yeelan runtii waxaan qabaa waxbuu ina taray waxa qudhahe uu ina taray waxa weeye markaad wax kale ka soo qaado calankii buluuga ahaa ee la laalaabay meeshiisii buu ku celiyay wuxuu ka taagay UN-ku ka taagay marka wixii kale ka hooseeya waa waxyaabo maxay tahay inaga dhexdeena waana waxyaabo iska dhamaan kara marka federaalku iyo maamul goboleedyadaba khaladaad oo iska dhici kara waxyaabo maxay tahay la isku fahmi waayaa waa dhici karaan laakiin waxaan qabaa wax lagu kala tagayo maaha wax weyn ma noqon doonaan waxyaabo badan baa halkan maxay tahay warar badan baa halkan odayaashii inaan laalayntii hadashay intii ay annaga noo soo jeedsay waa qaadanay waxa laala wixii aan wax ka qaban karana waxbaanu ka qabanaynaa waxaanu qaadanaynaa fariin iyo saxitaan iyo dardaaran waa qaadanaynaa haddii la yidhi waa la noqonaynaa waxaanu idinkula dardaarmaynaa idina inaad sidaas isugu duubnaataan waxaan kaloo rajaynayaa inay noqoto meeshii soomaalinimadu ka bilaabantay soomaalnimadii baabaaday meeshay ka bilaabantay oo xeryaha yaryar la kala ootay ay ku soo noqon lahaayeen inay noqoto Sweden community-geena Sweden inaad halkaas maxay tahay ka bilowdaan sida aad u haysaan waqti waa waqti dambe aad iyo aad baad u mahadsantiin waa idinla joognaa wixii kale xansho shaqeeyo wixii warar hoosaada mid